waxaan halkan ka salaamayaa wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka wasiir Omar agaasimaha guud ee hay'adda duulista hawada agaasimaha guud ee board of directors-ka maarayaha garoonka Muqdisho xildhibaanada agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka iyo cid kasta madaxda airline-ka iyo cid kasta oo halkan fadhida xilka ku fadhiyaan safiirada wadamada aan saaxiibada nahay sida wadanka China iyo wadanka Qatar oo kale iyo nin kasta xilku ku fadhiyo ku salaam anoo ku hadlaya magacaygu waa Mukhtaar Xamuud waxaana country manager ama agaasimaha guud ee shirkadda Freedom Airlines Soomaaliya Freedom Airlines waa shirkad ballaaran oo maalgeliye ah maanta ma bilaabin maalgelinteeda in ka badan waxay leedahay dhowr iyo 10 diyaaradood oo fliidyo duulaya oo all registerada hangarkoodii ku injineeradii kuriyadii dhammaan wax walba u dhameystireen waa diyaarad duusha oo caalami ah wax ka dhiman jira xagga qaanuuniga caalamiga marka laga hadlayo waxaan fursad maanta u helnay diyaaradda ugu horeysay inaan ka diiwaan gelino Soomaaliya inaan ka diiwaan gelino oo qaadato registration-ka 6 Oscar Foxtrot Alpha Victor ay nasiib u heshay inay hesho Freedom Airlines waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa madaxda qaranka oo wasiirka wasaaradda gaadiidka u matalaya oo shaqada isku soo dhabarjiyay shaqo ballaaran ka qabtay waxa halkan fadhiya sidoo kale waan jecelnahay wasiirka gaadiidka inuu ku wareejiyo xirfadlayaasha kuruga diyaaradda oo xirfadlayaal ah waan jecelnahay leysanadoodii Soomaaliya oo ah kuruga ugu horeeyay ee Soomaaliya ee leysan la siina iyaga noqdaan diyaaradda ugu horeysay leysan qaadata sidoo kale registration qaadata ama taarga Soomaaliya la bixiyo waxaan filayaa 30 sano dalka meel fuu ka soo noqday afartii sano shaqo aad iyo aad u wanaagsan ay wasaaraddu qabatay iyo madaxda qarankuba hawadii Soomaaliya ee dib loo soo celisay ogtiin sidoo kale waxaa la dhisay Acton Aviation-ka ayaa la dhisay waxaa la dhisay hay'adda duulista hawada ayaa si xoog loo dhisay waxaa la dhisay board of directors-ka ayaa la dhisay maanta oo aan taaganahay taariikhdana waxaa la dhisay taargadii ugu horeysay ayaa diyaaradaha halka ayaa la siiyay oo inaga aan ka mid nahay Freedom Airlines haddaan nahay Express waan helnay registration-ka 6 Oscar Foxtrot Alpha Victor waxaan ku hadlayaa anoo matalaya magaca ownerska company-ga Freedom Airlines oo Abdulqaadir Cali Aannu iyo Captain Mahad Hassan Abshir Mahad Hassan Abshir waa macruuf waa ra'iisul wasaarihi dalka Allah u naxariista shirkadda halkaas sal ku haysa odayaashaas ayaa iska muhiimka ah waa maalgeliyaal caalami ah waxay maanta bilaabayaan ma aha diyaaradu waxay soo wadaan waaweyn oo Atlantic Ocean Indian Ocean ka gudbay ayaa miiska soo saaran oo insha Allah marno raamka lagu arki doono ma dhahayo waa nooca mid hadda muxuusay ma hor dhacayo laakiin halkan lagu arki doono ayaga socda marka kamanigaasi oo kamani guuleystay business-kan ku guuleystay maanta professional ayaa aad ugu faraxsanahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u hambalyeynaa wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka iyo madaxda qaranka oo arrinkan isku dhabarjibay afartii sano shaqo laga taaban kara qabta xaqiiqatan waa shaqo la taaban kara waa laba soo bilowday labadii kun soo bilowday maanta wuxuu mariyaa in taargada la bixiyo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waqtiga aad u yar waana buursanahay bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah amaa bacd waxaan salaamayaa marti sharafka halkan kasoo qayb gashay dhammaantood waan salaamayaa waxaa maanta sharafii ah anigoo ah mulkiilaha airline in aan fursad aan u helo taargadii Soomaaliya ay bixinaysa airline-ka shirkadda hal airline inay ku guuleysato number 1 numberkii ugu horeeyay numberkii ku xigay mahad ilaahay ka gaarto dadka hay'adda wasiirka aviation-ka wasiirka Omar iyo ku-xigeenkiisa wasiir ku-xigeenkiisa iyo agaasimo ku-xigeenkiisa iyo qaybta kalantada aviation-ka Axmed Macalin iyo ku-xigeenkiisa asagana agaasimaha Cali Gacal wasiirka iyo ku-xigeenkii Abdi Ashkir agaasimaha Abdi Ashkir iyo ku-xigeenkiisa Bayrus intaas ka bacdi waxay u tala gashay shaqada Soomaaliya inay ka qayb qaadato diyaaradda hadda maanta la keenay oo meesha taagan
kaliya maaha saddex diyaaradood kaleentoodo Embraer 120 way soo socdaan. waxaa kaloo ku soo xiga Boeing 737-200 oo iyadana Afrika loo isticmaali doono iyo Soomaaliya. waxaa kaloo ku soo xigta hadduu ilaahay raalli ka noqdo Airbus 321 hal xabo Airbus 321 oo hal xabo Airbus 321 oo laba xabo saddex xabo ayagana Yurub iyo Afrika iyo Aasiya iyo Soomaaliya intaba loo isticmaali doono. marka waxaan u mahad celinayaa kasoo qaybgalayaasha saad wada joogtiin dhammaantiin. waxaan kaloo u mahad celinayaa safiirada la sheega oo kala duwan dhammaantood, wasiir xildhibaan ibi madaxda dhan madax sharafaadka dhammaantood oo u mahad celinayaa, ugaaska kulli dhammaan inta kasoo qayb gashoona. warkaygu wuxuu ku kooban yahay maanta farxad la soo koobi kara ayaan haysanaa maadaama Soomaaliya oo dhan aan nahay isheeg aan helnay taargadii Soomaaliya oon la haysan muddo xornimadan ilaa maanta. macnaha diyaarad oo isheeg dad qaadaysa oo taarga la siiyo macnaha inaan naqana dadka ugu horreeya inaan naqanay farxad ayay noo tahay ilaa maanta oo taariikhdu ay tahay 12 bishii 2021 farxad guud. hambalyo Soomaaliya, hambalyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.